الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وعانو ونسان داودياشينا قيمي قاياها لو كسو دوادا برنامج قارة وان ديرد كسار دون هدي الله أود لأو إدمو دعوين قوة وينا يكدا عسان دلابد كون اللي حيطوان كمقالة استوك برنامج كان وحا إيسو دياري إيسو جيد دونو أنيقو محمد عبد القادر الظاهر أشرفه ee daawasho wanaag sanad kasta waxa uu leeyahay dhacdooyin u gaar ah oo lagu xasuusto haddaba sanadan sii dhammaanaysa 2016 ayaa lagu tiriyaa inuu yahay sanad adduunyada ka dhacay dhacdooyin ugu tiro badan uguna badan kuwa tiiraanyo iyo xasuus ku reebtay dhammaan qulubta caalamka barnaamijkani waxaan ku eegi doonaa haddii allaha awood leh uu idmo dhacdooyinka ugu waaweyn ee ka dhacay magaalada Stockholm 19 Abriil sanada 2016 wasiirka guuriyeenta dalka Sweden Mehmet Kaplan oo muslim ah oo iska casilay xilkii wasiirnimo wasiirka guuriyeenta dalka Sweden Mr Mehmet Kaplan ayaa xilkii uu ka hayay dawladda Sweden iska casilay silsiladiisa waxa aqbalay ra'iisul wasaaraha Sweden Stefan Löfven ra'iisul wasaare Löfven ayaa sheegay in Mehmet Kaplan wasiirada ayaa sheegay in uu waqti dheer ahaa ruux ku jira halgan ka dhan ah cunsuriyadda iyo xaqjirnimada laakiin waayaha dambe waxa la hadal hayay shakhsiyaddeeda taas oo waxa ay u dhintay howlihii aan dawladda u hayay ayuu yiri wasiirka laakiin taasu micnaheedu ma ahan in wixii liga qoray ay run ahaayeen ayuu yiri Mehmet Kaplan wasiirkii hore ee guriyeenta xukuumadda Stefan Löfven wasiirka guriyeenta dalkaas Sweden Mr Mehmet Kaplan ayaa lagu eedeeyay in uu la afuray urur xaqjir ah oo dawladda aysan raali ka ahayn taasoo saxaafadda dalka Sweden ay baryahan hadal hayeen 18 Agoosto 2016 xaflad ballaaran lagu daafurayay iskuulkii ugu weynaa oo abid ay Soomaali ka furtay magaalada Stockholm ayaa lagu qabtay xarunta iskuulka ku yaala degmada Södertörn Stockholm International Academy School oo ah iskuul caalami ah ayaa waxa uu ka kooban yahay dugsi hoose dhexe iskuulkaas oo ah iskuulkii ugu weynaa oo abid ay Soomaali ka furtay magaalada Stockholm ayaa waxa hirgeliyay aqoon-yahano Soomaaliyeed oo dalka Sweden wax ku barat 14 Oktoobar sanada 2016 gudoomiyaha degmada Sponga Masar Cawd Xirsi ayaa iska casilay dhammaan xilalkii uu hayay dhaleecin waayadan loo soo jeedinayay Cawd Xirsi ugu dambeyn waxa uu ku dhawaaqay inuu iska casilay dhammaan xilalkii siyaasadeed ee uu hayay sida lagu sheegay war-saxaafadeed dhawaan ka soo baxay xisbiga cagaaran ee Lands Stockholm xilalkii uu Cawd Xirsi iska casilay ayaa waxa ka mid ah gudoominimada deegaanka Sponga xildhibaannimadii golaha deegaanka Stockholm xubinnimadii guddiga shaqaalaha xubinnimadii maamulka degmada ee arrimaha xuquuqul insaanka wakiilka guddiga ururka maatada degmooyinka xilsugaha Stockholm war-saxaafadeed ka soo baxay xisbiga milyobaatiyadka laantiisa Stockholm waxaa lagu sheegay in xubnaha xisbiga 23 November soo dooran doonaan ruuxii Cawd Xirsi lagu bedeli lahaa ee noqon lahaa gudoomiyaha Sponga 3 December sanada 2016 laba wiil oo walaalo ah ayaa waxa lagu dilay xabadda ay Soomaalidu baan tahay ee Rinkeby ee magaalada Stockholm abaarihii 10 fiidnimo oo 10 daqiiqo dhiman ayaa niman wajiga soo xirtay waxa ay weerar ku qaadeen maqaayad kafeega laga cabo oo ku taala xaafadaha Rinkeby oo ah xaafadaha ay ajaanibta iyo Soomaalida ku badan yihiin kuna taala waqooyiga bari ee magaalada Stockholm dalkaasi Sweden labada wiil ee radile ayaa lagu kala magacaabi jiray Faisal iyo Sakariya sida ay warbaahinta u sheegeen waalidiinta labadaas wiil 15 December sanada 2016 ayaa dablay aan heebtoo la gareyn waxa ay ku dhaawaceen wiil Soomaaliyeed xaafadda ay Soomaalidu u baahan tahay ee Tanista wararka aanu ka helayno xaafadda Tanista ee magaalada Stockholm ayaa sheegaya in wiilkaani dhalinyarada Soomaaliyeed uu ku geeriyooday isbitaalka kadib markii dhaawac ka soo gaaray tacshiirtii lagu furay maalintii Talaadada ahayd weerarka ayaa sidoo kale waxa ku dhaawacmay wiil la socday wiilkaani haatan ku dhintay ayaa booliiska sheegay inuu ka soo jeedo deegaan ahaan magaalada Malmö ee caasimadda saddexaad ee dalkaasi Sweden 10 December sanada 2016 ayaa waxa magaalada Stockholm ee caasimadda dalkaasi Sweden gaaray safiirka u fadhin doona dalkaasi Sweden ee dalka ku buuxay Scandinavian Master Cawaale Cali Kulane dawladda waqtigeedu dhamaaday ee Soomaaliya ayaa muddo 26 sano kadib waxa ay danjiro u soo magacaawday dalka ku yaala waqooyiga Yurub ee Scandinavian la isku yiraahdo dhanka kale shacabka ku dhaqan magaalada Stockholm ayaa si isku mid ah ugu hambaliyay telefishinka caalamiga ah Somali Cable sida dhexdhexaadnimada ku dheehan tahay uu bulshada Soomaaliyeed ugu adeego ayagoo ka codsada maamulka telefishinka in la sii laba jibaaro howlaha telefishinka caalamiga ah Somali Cable u hay bulshada Soomaaliyeed
بسم الله وآد وفرح سنة هاي مانت إن تي في الصومالي كيبل عن فكر كدر صدا رنتي وحكم دي هاي تي في هذا مهم كاي ودن كشقاية أهرمها بالشدة مرة والبؤتاجن وأنا كفرح سنة هاي داليرا أكتفى ماشان وجوكتا ويفعنا له تي في هدو حفيز فران كرا أو ما عرفت ميل صدقه الله وسوا هجاجة ويالن كرا arrimaha bulshada iyo doodaha iyo waxyaabahaasna inay xoog saaraan waa fiicnaan lahayd oo maaragtay barnaamijyo shacabka iyo horumarintiisa iyo ka hadlayo wadankan ku saabsan inay ay dadka ka qabtaan oo waliba dhalinyarada ay xoog saaraan iyo dhibaatooyinka magaalada ka jira bismillaahir rahmaanir rahiim magacaygu waa Alxaashi waxaan ka mid ahay ragga daawada telefishinka Somali Cable run ahaantii telefishinka Somali Cable waxaan u arkaa mararka qaarkood yani barnaamijyadiisu inay yihiin barnaamijyo aad u heer sareeyo caalami iyo international waxaanan oran lahaa ma taqaanaa inta hadda u qoran oo barnaamijyo kale oo extra oo maartay bulshada xaggeeda ku saabsan in lagu daro inay noqdaan barnaamijyo wada socda oo gudaha iyo dibaddaba waxaan oran lahaa telefishinku waa horumarsan yahay marka bismillaahir rahmaanir rahiim waxaan ka mid ahay daawadayaasha ama dadka la socdo barnaamijyada Somali Cable waxaan aad ugu faraxsanahay howlaha ay wadaan ay u hayaan waxaan rajaynaynaa inaad si laba laabtaan hawsha ay wadaan insha Allah waxaan rajaynaynaa mustaqbalka in ku amaani doono howlaha iskiina isku abaabsheen oo aad ummadda Soomaaliyeed u haysan insha Allah ilaahay idinkiisa guul waxaan idin leeyahay dhamaantiin aniga waxaan ka mid ahay dhageystayaasha ama daawadayaasha TV-ga caalamiga ah ee Somali Cable runtii waa TV aad iyo aad aan ugu helay barnaamijyada uu soo daayo iyo wararkiisa isku dheelitiran waa TV aan isleeyahay waxa ka shaqeeya wariyaal aad iyo aad u tayo sareeya iyo dad mas'uuliyiin ayaa maamula marka sanadka cusub waxaan leenahay TV-gan shaqada ummadda Soomaaliya u hayo hasi laba jibaaro halka ha ka sii wado marka TV-ga waxaan leeyahay shaqadiisa hasi laba jibaaro halkaana ha ka sii wado horena ha u sii socdo ummadda Soomaaliyeedna hawlaha iyo shaqooyinka muhiimka u hayo waan ugu hambalyeynaya hambaliyo TV-ga Somali Cable waxaan ka mid ahay daawadayaasha telefishinka Somali Cable aad iyo aad ayaan ugu hambalyeynaya hawsha weyn aad u haysiin ummadda Soomaaliyeed waxaan jeclaan lahayn in la soo kordhiyo barnaamijyo badan oo aad loo balaariyo sida barnaamijyada diinta oo kaleeto iyo barnaamijyada arrimaha waa tahay daawadayaal intaasi waxaan ku soo afmeeraynaa barnaamijkeeni gaarka ah oo ku eegayna dhacdooyinka sanadda 2016 waxyaabo ugu waaweyn ay ka dhacay magaalada Stockholm inta barnaamijkan lamida ku kulmi doono waxaan kaga tagaynaa sidaas iyo nabadino aad iyo aad